السلام الله عليكم داوديال soo dhawaada waa maanta iyo muuqaal kale wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in garoonka aadan Cabdulle Cismaan aadan Cadde lagu istaajiyay diyaarad rakaab u waday magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo aynan wali jawaab ka bixinin maamulka Koonfur Galbeed sidoo kalena waxay sheegayaan warar kale oo naga soo gaarayo magaalada Baraawe in laga soo dejiyay ciidamo ka socda Haramcad داوديال سيدنا نوجين دولة سوماليا أيها وحي هوري هشيس أو لقى شيء أمني مصر دولة سوماليا أو مصر لقى شيء هشيس كاس وحي شيء يسي إن أي ربطين يجيسوا حدودها أي لا ده إثيوبيا مملكة كونفور قلبنا وحي حدود لإثيوبيا سيدا إنه وذا أجنه هي إثيوبيا وحي لا هذا شيء أما أي له هشيس لسه ما يستطيع كونفور قلبنا إلا أي هذا وحي أي كتاجن تهي دريقي هاين أي تاجرتي إثيوبيا أي نكسو هرجيد مصر عبد العزيز لفت جرين أو هذا اللي بدن كهاللينا واد مقشين إن هاتن هذا وحي وجودتي إن لإسكعنا قبتي يدو لمادية ده يو دخالها يو وذا شقينتي الدولة الفدرال كلها هيد مملكة كونفور قلبت عبد العزيز لفت جرين أسجنا واحد جوانا كمسو صارن وركب وحي شيء يندو لماد كمان تله مرحوم كبدها ركابك ميت كيسنا لو سو ذي مملكة كونفور قلبت إن لوجودو مجال بيدابو arrintaasi oo aan aad uga wada xumaanay waxaanu leenahay dawladda federaalka Soomaaliya in aysan dib ugu laabanin dhaqamada noocaas ah halka uu Xasan Sheekh shalay ku eedeyn jiray farmaajo markii uu ka xiray dowladnimadii iimaaniyay magaalada Kismaayo in uu maanta ficilkii asaga ku eedeyn jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo asaga maanta sameeyo waa arrin aad looga xumaado dawadayaal sidoo kale diyaaradihii la hakiyay ayaa maanta loo shalay lagu wargeliyay in aysan mar dambe aysan dhoof u socdaali doonin magaalada Baydhabo wixii warar ka soo gudboonaada halkaas ayaan idin kula soo socodsiin doonaa waxa kale oo la sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay heshiis la sameysatay shirkadda in ay heshiis la sameysatay hay'adda nuclear-ka sameyso dawladaha nuclear-ka lehna ay ku biiri doonto Soomaaliya daawada arrintaas adiga iyo waxa aad ka qabto commentiga inagula wadaag والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته